ku soo dhowow riwaayadda sahanka nolosha tani waa qaybta 9aad xalqadda 2 xalqaddii koowaad waxaanu aragnay Sheikh Roble oo aaminsan in hibo xilka gudoomiyaha daaqsan ay u qalanto iyo maama Ceebla oo aaminsan in kursigaasi aysan u qalmin waxa ay la kulmeen wiilkooda Daahir oo ka niyad jabsan in hibo hadalkiisa ay diiday dhanka kale hibo iyo Mooge waxa ay ku jiraan olole doorasho oo xasaasi ah waxaan kala waan aragnay Zamzam oo tababar ay ku maqnayd ka soo laabatay kana qayb qaadanaysa howlgalo la doonayo in burcadbadeeda lagu qaado haddaba sidee ayay wax u dhici doonaan inta xalqadan lagu jiro arrimahaasi iyo kuwa kale oo xiiso badanba ka dhageyso halkan isla hadda sahanka nolosha waan garanay waxaan idinku boorinayaa feejignaan dheeraada iyo degdeg inaad hawsha u fulisaan howlgalka waan garanay taliye howlgalka ma doonayo inuu waqti badan ku lumo ma garatay aad taliye Axmed waan gartay ninka Mukhtaar waxa uu haystaa taageero aad u weyn taasi waa inaad la socotaan ma garateen waan garanay waa nin qiyaano badan waa inaad si taxaddar leh aad ula socotaan oo aad ka war haysaan dhaqdhaqaaqiisa oo dhan ma garateen aad waqtigana ha iska luminina aadna ula socda dhinac kasta oo feejignaada ma garateen aad 246 may maqashaa see wax u jiraan codkii raadiyaha ayaa go'ay taliya tawakalow kollay waxbaa jira waxaan filayaa inuu soo laaban doono codka laakiin waxbaa jira sidaan qiyaasayo ma garatay halow 246 may maqashaa haa taliye waa ku maqlaa may maqashaa taliye si wanaagsan waa ku maqlaa maxaa soo kordhay maxaa cusub taliye halow maxaa soo kordhay taliye ninkii Mukhtaar ahaa ayaa la baxsaday 3 cabdibile xabado ayaana isdhaafsanay ma garatay waan gartay hello taliye may maqashaa si wanaagsan waxaa jirta inaan ilaa hadda ka qabanay 3 nin oo aan gacanta ku hayno waan fahmay haye kuwii baxsadayna waa lagu dibi jiraa sidaas la soco waan gartay 3 nin aynu hayno waxaanu keeni doonaa daaqsan si loo wareesto ma fahantay aad ayaan kuu fahmay wixii dheeri ah ama dheeraad ah waa idinla wadaagi doonaa sidaa la soco waayahay maasanid waa nin qiyaano badan ninka la yidhaahdo Mukhtaar laakiin halkee buu aadayaa meelahan ayuunbuu meeraysan doonaa keliye ma meel u baxsado u haystaa meel kasta ha galo waa uun kiila soo qabto ilaa aannu ka soo afjarno isaga iyo kuwa la socda ma nasan doonno bilxaqiiqa meel uu nooga baxsan doono ma jirto waa in aan soo qabannaa Mukhtaar taliye Axmed maxaa xiga oo aanu qabanaynaa haddeer bal inoo sheeg tallaabadeenna xigta howlgalku wuu socdaa ma joogsanayo waannu sii wadaynaa samsamey ilaa aan ka sifayno deegaanka daaqsin burcadbadeedda haa waan fahma taliye howlgallo kale ayaannu qabanaynaa fursad ma siinayno burcadbadeedda waa inaan dabagalnaa oo meeshii ay galaan aan uga dabagalnaa waa sax waa fikir wanaagsan taliye tawakal siday kula tahay arrintani howlgalkani waannu wadaynaa waa sida aad sheegtay fursadna ma siinayno ay ku nastaan tuugadaas waa in aan soo qabqabannaa oo aan sharciga hor keennaa oo lala xisaabtamaa burcaddan mahadsanid taliya tawakal waa sidaas kama harayno ilaa aan gacanta ku soo dhigno oo aan ka nadiifinno deegaanka daaqsan sahanka nolosha geedi subax wanaagsan subax la mida Sheikh Roble mooga iyo hibo waa joogaan ayaan filayaa haa Sheikh Roble waa kuwa midba meel buu fadhiyaa soo ma aragtid waan arkaa igu yeer labadooda haddeer adeer khayr allah ku siiyey orod igu yeer waayahay Sheikh Roble hadda ayaan kugu yeerayaa hibo waxaa ku yeeraya Sheikh Roble waayahay mooge adigana soo istaag labadiinaba Sheikh Roble ayaa idin baahan waa ku maqlaa waayahay waan u tagayaa ee aawa Sheikh Roble waa kaas holka dhinaciisa shishe ayuu taagan yahay waa arkay mahadsanid subax wanaagsan Sheikh Roble subax wanaagsan hibo halkan soo fariisaade halkan imo waayahay Sheikh Roble
waa ku salaamay sheekh rooble ma adiga ayaa ii yeedhay haa aniga ayaa kuu yeedhay mooge ee halkan soo fadhiisa adiguna waayahay sheekh waa idin salaamay marka hore labadiinuba waxaad tihiin tartamayaasha doorashada u soo istaagay wax badan idiin sheegi maayo oo waad garanaysaan oo waad la socotaan sharciyada doorashada ma garateen waa garanay doorashadan xilli ayaa loo cayimay inay bilaabato xillina waa loo cayimay inay dhammaato ammaanka waxaa gacanta ku haya ciidanka booliiska deegaanka daaqsan intaas waa isla fahmnay baan filayaa haa waa fahanay marka doorashadu ay soo gabagabowdo ka gadaal codadka si toos ayaa loo tirin doonaa si daahfuran iyadoo musharax kasta wakiilkiisu goobjoog uu ka yahay goobta tirinta codadka intaas waa isla garan ayaan filayaa waa isla garanay sheekh rooble waxaan kaloo idin sheegayaa ama idinku wargelinayaa in doorashadu uu kormeeri doono khabiir madax bannaan bilowga doorashada ilaa dhammaadkeeda taasna daah idinkama saaran ayaan filayaa may daah nagama saarna mid ayaa idinka codsanaya labadiinnuba maadaama aad tihiin labada musharax ee tartamaya ma garateen noo sheeg sheekh rooble waxaad naga codsanayso waxaan idinka codsanayaa in aan wax khudbada la jeedin karin ilaa ay doorashadu soo idlaato ama ay soo dhammaato oo la shaacinayo natiijada kama dambaysta ah ma isla fahmna intaasi haa sheekh rooble waa fahanay waxaan idiin sheegayaa in doorashadu ay aad u kacsan tahay sidaa daraaddeed waxaa la doonayaa taageerayaashiinnu in aanay samayn wax rabshado ah si carqalad aan loo gelin doorashada dhacaysa taasi aad ayay muhiim noogu tahay waa inaad ogaataan labadiinnuba aniga taageerayaasheedu waxay u dabaaldegayaan sheekh rooble guusha aan gaari doono guul ahaa sheekh rooble middaas aad ka dhawaajisay aad iyo aad ayaan u fahansanahay mahadsanid hibo mahadsanid hibo waxaad ku wanaagsan tahay inaad tartanka isaga harto walaal waa taladeeda waayo waxaad tahay qof dumar ah wax iga hor istaagi karaa ma jirto inaan doorashada ka qayb galo mana ka hari doono haweenka waxaa loogu talagalay guriga hooshiisa inay maamulaan oo keliya taasi ayay ku fiican yihiin marka tani hooshaada maahan walaalay tan kale waa ceeb in aad doorashada aad ka qayb galayso aad kala tashan weydo seegaaga ama xaajigaaga aamus mooge aamus oo ilaali nidaamka maxay tahay waxaad ku hadlaysa mooge nin weyn ayaad tahay meeshan waxaad moodday suuqa inaad joogto kale halkan ma aha meel lagu cayaaro mooge waa inaad akhlaaqda ilaalisaa waa sidee mooge nin weyn iska dhig mooge maxaa kugu dhac mooge anigu waa sii baxaya aad ayaan kuugu mahadcelinayaa sheekh rooble waxaad tahay waxgarad waaye arag ah maasha allah adiga ayaa mudan gabadheedii hibo waxaad tahay gabar dulqaad badan maasha allah sheekh rooble waxaan kuu sheegayaa inaan aqbali doono natiijada ka soo baxda doorashada iyo go'aanka shacabkaba waa gartay waad mahadsan tahay hibo waad mahadsan tahay khayr allah ku siibo doorasho haddaa gasho waxaad filan kartaa guul iyo guuldarraba sidaas daraaddeed waxaan ku qanci doonaa natiijada ka soo baxda ee kama dambaysta ah go'aankaaga aad ayaan ugu faraxsanahay go'aankaaga hibo waannu ku mahadsan tahay sida aad diyaarka ugu tahay raacista nidaamka doorashada ee caalamka iyo tan maanta annaga aan dhigayno oo la jaan qaadaysa doorashooyinka caalamka oo kale aad ayaad u mahadsan tahay gabar adigoo kalea waa loo baahnaa adigaa mudan sheekh rooble aad iyo aad ayaan kuugu mahadcelinayaa anigana hibo tan kale waxaan aaminsanahay in dumarka daaqsan ay dhiirigelin doonto tallaabadan aad qaadday ee ku aadan doorashada guul iyo guuldarraba waana mid aad loogu farxo runaantii dumar badan way kaaga dayan doonaan waayo waa mid aan dhicin waa mid ugubku ah degaankeenna marka waxaan ku leeyahay hambalyo mahadsanid sheekh rooble aad ayaad u mahadsan tahay saxanka nolosha ninkii dirir ahaa waataa doonidiisa badda ka soo saaraya waa siduu saaka u kalluumaysi tegey dirir waa ku salaamay ka warran xaaladda waan fiicanahay daahir sheekh rooble ii warran adiga xaaladda ka sheekee waan fiicannahay maasha allah halkan ayaan iska fadhiyey adigaan ku soo booqday ilaan maalmahan isma arage waa runtaa beryahan ismaan arag daahirow waa adduun iyo xaalkiisa annagoo hal magaalo joogna ayaan is arki la'nahay qof kasta tiisaa cuslaysay waa runtaa taas waxaad iga warrantaa magaalada iyo xiisadda doorashada adigaa magaalada soo marmaray haa waa runtaa xaaladda doorashada ayaa ka jirta magaalada daaqsan oo dhan meel kastood istaagtaba waxaa la hadalhayaa doorashada dhici doonta waan gartay ee goormi ayay dhacaysaa doorashada habeen dambe habeenka xiga ayay dhacaysaa doorashadu waxay bilaabanaysaa salaadda maqribka kadib waxaana natiijadeeda la shaacin doonaa salaadda cishaha kadib waxaan doonayaa halkaasi ay doorashada ka dhacayso aad ayaan u xiisaynayaa oo waad tegaysaa miya dirir meesha ay doorashada ka dhacayso waxaan islahaa dirir waxaas wakhti uma hayo
waa qasab inaan tago si aan u taageero hibo oo aan garab istaag ugu muujiyo ma meel lagu kala hara ayaa la joogaa waa doorasho xiise badan oo welina mid ka xiise badan aanay deegaannadeen hore uga dhicin maasha allah waad ku mahadsan tahay taageeradaada weyn daahir taasi waa waajib ma aha inaad iga mahad celiso waxaan hubaa in hibo deegaankan ay wax weyn u qaban doonto haddii la doorto sidaa daraaddeed kama baaqanayo oo waan tegayaa doorashada halkay ka dhacayso aniga xitaa waan tegayaa si aan xaaskayga taageero ugu muujiyo oo aan u garab istaago adiga inaad tagto waa biyo kama dhibcaan waayo xaaskaaga ayaa tartan ku jirta guusheedana waa guushaada oo waxaa la leeyahay daahir xaaskiisa ayaa tartanka ku guulaysatay haddii ay guulaysato waa runtaa taasi meel aan uga maqnaan karo ma jirto waan ku qasbannahay inaan goobjoog ka ahaado howlka uu shirka ka dhacayo waa sax waan kugu raacsanahay iyadana waxay u tahay niyad dhis marka ay dhinaceeda ay ka aragto tirir waxaad iga warantaa kalluumaysiga daaqsan beryahan waa sidee daahirow kalluumaysigii beryahan waa iska qunyar socod oo sidii hore ma ahan sababo keena ayaa jira maxaa sababay dirro bal ii sheeg walaalow kalluumaysigii waa nagu adkaaday anigoo kalluumaysi u sii socda waxa ay soo celiyey ciidanka ilaalada xeebaha kuwaasi oo howlgal ka waday badda waa gartay haye kalluumaysigii deegaanka daaqsan wuu adkaaday si sahlanna in kalluun lagu soo helo beryahan dambe way adag tahay caqabado waaweyn ayaa naga haysta kalluumaysigii waa arrin dhibkeeda leh dirirow ma ogayn arrintaas oo aad ka dhabaajisay haa beryahan ma jiro wax kalluumaysi ah sababta weynna waxa ay tahay in maraakiibta waaweyn ee kalluumaysiga ay doomaha yaryar ay barakiciyeen iyagoo xoog u sheeganaya daahirow ma aaminaysaa 2 bil oo la soo dhaafay waan liidanay oo ma helin dhaqaale igu filan oo aan nolosha ku maareeyo waa arrin murugadeeda leh iyo wax laga xumaado haddii aad deegaankaaga si xor ah u kalluumaysan karin xorriyad loo kalluumaysto goormeen noogu dambayso daahirow beryahanba sidaas ayaan ahayn waan iska harjadaynay si aan nolol maalmeedkeenna aan u helno kolay dhib laguma waaro waan laga baxayaa arrimahana way soo hagaagi doonaan insha allah bal haddanna keen aan aadno magaalada oo aan meelahaas shaa ka sii cabnay saxanka nolosha zamzamey soo dhowow marka hore maxaad cabaysaa kuleel iyo qabow shaahna waa heli kartaa qaxwana waad heli kartaa taliya waad mahadsan tahay waxaan cabayaa qaxwada marka hore koobkan qaxwaha ah isku kululay mahadsanid kabtan xasan adiga ayaa mudan zamzam kabtan xasan oo horta xarunta ciidanka ilaalada xeebaha weli waa sideedii waxba iskama beddelin waa sidii aan ku ogaa ilaa iyo hadda wax horumar ah iyo wax isbeddel ah uma jeedo wallaahi haa waa runtaa horta zamzam badi xeryaha ciidamada waxba iskama beddelaan dadka ayaa isbeddela way dhacdaa in saraakiisha la beddelo way dhacdaa in askarta la beddelo laakiin dhismayaasha iyo waxyaabahan dhan sidooda ayay ahaanayaan wax isbeddel ah ma jiraan waan gartay kabtan xasan oo haye zamzamey goormee ayaad dadka u sheegaysaa horta inaad daaqsan dib ugu soo laabatay ileen waad joogtaa hadda waxaa dhici karta in dadka qaarkood ay ku arkaan haddeer iyagoonba ka warqabin dib ugu soo laabashadaada daaqsan oo muddo aad ka maqnayd dibna aad ugu soo xiistay dadkaagii allayleh waa runtaa waa su'aal muhiima kabtan xasanow waa gartay aad baan kuu gartay waa waxa aan kuu weyddiiyey su'aashaasi inay muhiim tahay kabtan xasanow waxaan kuu sheegayaa in howlgalkan hadda socdo uu yahay mid xasaasi ah ayna suurtagal ahayn inaan shaaciyo soo laabashadayda ilaa hawshan ay ka soo gebagaboobayso waxay la tahay inaana shaacin oo marka hore hawshan aan ka farxasho haa waan gartay si fiican ayaan u fahmay taas ayaana sabab u ah inaana sheegi karin soo laabashadayda haddeer ilaa howlgalkan uu soo gebagaboobayo waxay igula habboon tahay inaan sidayda u gaabsado waa arrin cajiib ah maasha allah haye maxaa cajiib ah kabtan xasan waxaan soo xusuustay markaad ciidamada ilaalada xeebaha ku soo biiraysay maalinkaas sidaan ayaan u taagnaa adigoo gabar yar ah oo weliba xishood badan oo aamusnaan badan ayaan ku ogaa haa waa gartay weli waa iska sidii ayaan u xishood badanahay hadda waxaan arkayaaba oo ay hor fadhida zamzamtii yarayd oo kalsooni weyn ay ka muuqato aqoon ay ka muuqato karti ay ka muuqato maasha allah maasha allah waa gartay kabtan xasan dee meeshii miyaa la taagnaanayaa qofku wuu isbeddelayaa waa la weynaanayaa jir ahaan iyo maskax ahaanba dabcan anigana dadka kale ayaan ula simanahay isbeddelka zamzamey horta waxaan kuu sheegayaa inaad tahay runtii qof aan aad ugu faano
zamzam ahaan maadaama aad ka tirsan tahay ciidanka ilaalada xeebaha ee deegaanka daaqsan aad ka mid ahayd ciidamadii ugu horreeyey ee la qoray ee la tababaray ee daaqsan marxaladda amni ee maanta ay ku jirto ee wanaagsan sababta u ah aad ayaad u mahadsan tahay kabtan xasanow arrintaasi aad ayay ii dhiirigelinaysaa mahadsanid in badan horta zamzam weli ma ka sii fiirsanaysaa inaad ku soo laabato magaalada daaqsan maxaa kuu qorshe ah oo aad degtay marka hore kabtan xasanow waxaan kaloo kuu sheegayaa in saaxiibbada saabir iyo colaad ay weli joogaan magaaladii daaqsan ee aad uga tagtay howlahoodiina ay wataan oo weli waa ay joogaan miyaa saabir iyo colaad magaalada kama aysan tegin haa way joogaan labadooduba weliba deegaanka ayay ku sugan yihiin wax dhib ah ma qabaan dadkooda ayay ku dhex jiraan horumarka dadkooda ayay ka shaqaynayaan kabtan xasanow waxaad iiga warrantaa saabir xaaladdiisa isagu waa sidee hadda wallaahi saabir waa fiican yahay wuxuu hadda ka soo kabanayaa dhaawicii aad ku ogeed aad buu u fiican yahay shaqooyinkiisii iyo wixii oo dhan kor buu kala socdaa wax dhibaato ah ma qabo xaaladdiisa waa aad bay u fiican tahay haa waa hadal wanaagsan oo farxad leh waxaad ii sheegtay kabtan xasanow ninkaasi inuu soo bogsanayo waa hadal aan ku farxay umuuraha oo dhan sidaas aan kuu sheegay ayay u kala socdaan kabtan xasanow aniga tababarka muqdisho muhiim ayuu ii ahaa waxaan u malaynayaa inaan daaqsan ku soo laaban doono si aan qoyskayga ula noolaado ilaan muddo badan ayaan ka maqnaa deegaankanna waa kii aan ku soo barbaaray waan gartay waa hadal aad u wanaagsan zamzam hadda waa sida aan rajaynayo ama ii qorshaysan ku soo laabashada deegaankayga daaqsan ma xuma waa ra'yi wanaagsan arrintaasi guud ahaanba waana fikradahaadii wanaagsanaa ee aan kuga aqaanay laakiin kabtan xasan ciidamada ilaalada xeebaha ee daaqsan wax iska beddelay haba yaraatee ma jirto hadda waa midda aan la yaabanahay ilaa iyo hadda oo aan isweydiinayo hadalkaas maxaad ka wadaa zamzam ii jilci bal waxba ma fahmin bal ii bayaani hadalkan waxa aan ka wadaa ciidanka ilaalada xeebaha ee daaqsan wax horumar ah ma laha dhinac kasta marka aan ka eegay waa aragtidayda oo keliya horta waxaana u sabab ah tababar la'aanta ayay ila tahay wax horumar ah oo ii muuqda hadda ma jiraan yah oo maxaad tidhi si fiican kuuma maqlo maxaad tidhi haa kabtan xasan waa wax jira oo dabcan hadda ii muuqda sidoo kale waxaan doonayaa inaan door weyn ka ciyaaro la dagaalanka burcadbadeedda oo deegaanka hadda aad moodaba inay aad ugu sii kordhayso gabadhan wayba ismahadiisayba intay muqdisho ku maqnayd adiga ayaa aniga kaa fiican miyay maanta iila timid wallaahi waa la yaab waayaha iyo wakhtigaana simay anigay iyadu in maanta ay ii tidhaahdo waxba isma beddelin deegaanka oo waxba maadan qaban waa la yaab runtii kabtan xasan sibaad u gunuunucaysaa horta iga raalli noqo haddii aan hadal khaldan ku hadlay waan ka cudur daaranayaa dabcan waxaan wejigaaga ka dheehan karaa hadalkayga inaad dhibsatay wax xumaan ah ulama jeedin hadalkayga kabtan bis yaaqay bis hadalka intaas iiga ekay intaan wixii ka badan kama sii hadli karno mawduucaas horta kabtan xasanow waxaan sidoo kale maqlay in dooni ay lumiyeen ciidanka ilaalada xeebaha weliba intii aad adiga taliyaha u ahayd in doonidaasi ay luntay zamzam marka uu howlgalkan kuu dhammaado waa inaad si degdeg ah muqdisho ugu laabato haddana xafiiskayga anigaa iska leh iiga bax dhaqso inta goorigoor ay tahay isdeji fadlan iiga bax xafiiskan zamzam orod iiga bax anaa iska leh xafiiskan iiga bax taasi waxay ahayd qaybta sagaalaad ee xalqadda labaad ee sahanka nolosha waxaana filayaa inaad ka wada hesheen waxaa haatan la joogaa xilligii aan fikirkaaga dhegaysan lahayn adigoo ka soo qayb qaadanaya qaybta wicitaanka dhegaystayaasha oo isla hadda soo gelaysa ama farriin noogu soo dir nambarka 2285 su'aasheenna toddobaadkana waa ma isla shaqayn karaan xasan iyo zamzam si ay u horumariyaan ciidanka ilaalada xeebaha daaqsan haddii ay jawaabtaadu haa tahay kow inoogu soo dir nambarkeenna farriimaha gaaggaaban ee 2285 haddii ay jawaabtaadu maya tahay 2 inoogu soo dir nambarka farriimaha gaaggaaban ee 2285 su'aasheenna haddii aan mar kale ku celiyo waa ma isla shaqayn karaan xasan iyo zamzam si ay u horumariyaan ciidanka ilaalada xeebaha daaqsan ha moogaan inaad dhegaysato sahanka nolosha jimce walba saacaddu marka ay tahay 2:15 duhurnimo sidoo kale nagala soco barteenna facebookga